السلام عليكم ummadda sharaftii shaarbada waaweyn meel kasta joogtaan maanta yar soo wacay sheeko qosol ii sheegay marka qosol lama wayna way tahay ina way nin baa hadda ka hor waxa sheekada dhacday waxay ahayd waxaa laga hadlay early ages of asxaabihii nin baa Soomaaliya markaas Soomaaliya boqornimo madaxweyne waxba uu waayay inuu wax naqdo rabo uu waayay uu ka tagay dhulkii Soomaaliya uu baxay Egypt Cairo uu tagay markuu meeshii tagay dadkii dhan way banaan baxayaan markuu meeshii tagay waxay u banaan baxayaan cid rabto inay boqor baa la rabaa in la doorto laakiin dadkii dhan waa diidan yihiin qof kasta wuxuu yidhi anu ma noqonayo idinku ma noqon lahaydeen haddii boqor waa markaa boqor noqotay 7 sano lagu qabanaa 7 sano marka ay dhacdo waa lagu dilayaa weliba waa wax dadka loo sheegayo waa dhaqan iyo ay lahaayeen markaas dadka carabta North Africa marka cid farta taagtaa la waayay oo ay tiraahdo aniga boqor aan noqon qof kasta dhimasho ka baqaya markaas yiri boqornimo waxa u diideen waa nala dilayaa okay asagii wuxuu dhahay haddii aan boqor noqdo maxaa dhacay sidoo waxa la yiri waa lagu dilayaa wuxuu yiri xagee loogu dilayaa xagee saleeyeen meel marka adiga 7 kilometer miya waxaas meel saas ah la geeyay waa laga magaalada laga saaray meel waa la geeyay looga tasafta la geeyay waa looga soo tagay qof marka asaga boqor buu noqday wuxuu yiraahdaa markuu boqor noqday wuxuu dadkii ku khasbay meesha asaga lagu dili doono iyo magaalada uu joogo inta u dhaxaysa meel kasta every 1 kilometer guri buu ka sameeyay every 1 kilometer guri buu sameeyay هذا تبع الله هاي بقر مر يعيروا هل يدلوا وان يلا نيكي وانيكو غوري والله بين ما شكر بقر بو نقدي dadkii baaba dhahay naga boqornimo marka anigu waxaan idinka waa su'aal hadda ma noqon lahaydeen boqor haddii aad ogtihiin in la idin dilayo 7 sano ka bacdi ma noqon lahaydeen 7 sano ka bacdi haddii la dilayo boqor ma noqon lahaydeen sheekadaas sax yar soo sheegay waa sheeko run ah dhacday سو بدن tahay وفاتن سؤاشاس waaye ma noqon lahaydeen kasoo jawaaba 7 sano ka bacdi ninka wuxuu sameeyay adduunka wallahi wala dadka Soomaalida baa la yaabay wallahi dadkeena waa dad talented gabadhii ugu horeysay oo diyaarad kicisa Afrika gabar Soomaali wallahi sabanaha meel kasto aan tagnana government-ka waa galaa hadda fiir yar in adeerkay immigration-ka Canada oo dhan yar in adeerkay Ahmed Hussein kasankay waa in adeerkay ruumaa أري دولة الجوفرمنت كتير ملك استثمار حتى كهر شركة كلا جت روشك بس ما حلاقها ما حلقي 7 كهر دجال كي 7 كهر
diyaaradaha marka diyaaradaha oo dagaalka diyaaradaha dagaalka markii la kicinayo waa easy baa la samayn karaa laakiin markii la dejinayo waa dhib marka diyaaradda markii sameeyeen wiil arday Soomaaliya oo markaas Russia wax ka baranayay baa waxa la yiri ninka haddii cid dhimanayso diyaaradda ninka aan tijaabino ismaail ahayn ayaga ninkii Soomaali buu ahaa wallahi diyaaradii buu kiciyay soo wareejiyay soo dejiyay marka fara hooyo dhaay waayay kaxaysta mar way yaabeen wallahi way yaabeen weli Russia ninkuu ugu horeeyay ka hadla ninkuu ugu horeeyay diyaaradaha dagaalka oo missile-ka wada ninkuu ugu horeeyay markii diyaaraddu markay kacayso waa easy soo dejitaanka baa dhibaa ruushka meesha joogay wax samayn karay ma jirin inta wax wixii farsamada yaqaanana fulaynimo wadna ma haysan wadna laakiin ninka Soomaalidu waa inkastoo la dilay oo history laga tagtay history dhan laga tagtay marka waa dadkeena Soomaalida wallahi meel kasto ay tagaanba waxbay la tagaan maaha Afrikaan hadda magaaladan aan joogo waxa jooga Suudaan baa joogta waxa jooga Afrikaan oo dhan West Afrikaan oo dhan baa jooga Soomaalidu laakiin dhaqankooda iyo business meel kasta dukaan iyo meel dhar iyo meel kasta waxbay ka furtaan way yaabeen gaalada inta way yaabeen Lebanese way yaabeen suuq baa laga qaatay Soomaali awal dadkan xamaali iskaga jiray dadkan Afrikaaniinta xamaaliga iskaga jiray ya marka saas dadka madow waa dad caqli leh laakiin history-ga waa laga tirtiray ya history-ga waa laga tirtiray gabadhii Soomaali gabadhii ugu horeysay oo diyaarad kaxaysay Afrika Soomaali waa intaas maanta in la share gareynaya subscribe noo badiya share noo badiya like ku dhufta waa lacag la'aan xasida noqon laakiin haddaad xaasid lahayn meel ma gaaris qofku meel gaar ah ku xaasidiyo leeyahay xaasidku waa darajo la gaaro waa darajo waa la gaara iskama noqon karti xaasid xaasidku wuxuu baahan yahay halkaa igala socda ina naafi TV ina naafi studio igala socda share gareeya waxaan samaynaynaa anig iyo yarka Cabdi oo dhowr video igala jirjiray waxaan rabnaa maalin inaan dadka u qabano ama Friday ama Saturday ama Sunday waxay ahaato oo program fiican oo la socotaan inaan bilownaan rabnaa oo ku tala jirnaa marka halkaan nagala socdo xaasin iyo la isku noqone farta subscribe iska taab intaas iyo